haddaba haddii halkaan aad soo gaartay waxaan ku leeyahay waxaa tahay qof dhiiran oo marka karti leh oo go-aan leh oo geesinimo iyo marka noloshiisa inuu wax ka bedelo raba ayaa tahay aan ku leeyahay waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka ilaa iyo heerkaani aadna soo gaartay sidoo kale waxaan rabaa saddexda coin ugu dambeeya waa saddexda coin aan ugu talagalay qof walba oo marka hami kale suuqaani waa marka aan rabo inaan la wadaago dadka dhamaysta muuqaalkaani oo keliya ayaan xaq yeelan doona oo marka heli doona saddexdaasi coin iyo muhiimadda ay leeyihiin sidoo kale haddii aad danaynayso koorsooda cryptocurrency-ga iyadoo saddex level ah hadday tahay beginner hadday tahay intermediate hadday tahay advanced ayaa marka diyaar ah waad la soo xiriiri doontaa numberka waxaan ku dhigi doonaa qaybta iyo description-ka ama muuqaalka dhexdiisa ayaan idinkula soo wadaagi doonaa insha allahu tacaala marka waan sii wadi doonaa la soo ilaa iyo muuqaalka dhammaadka saddexda coin ugu dambeysana waa saddexda coin ugu muhiimsan muuqaalkani maanta aan duubayo intaasi kadib waxaan rabnaa marka inaan gaarno saddexda kun xoogoo marka waan ku daahanay labada kun inaan ku jirno marka midaasina waan idinka codsanaynaa inaad saddexda kunna gaarsiisaan maalmaha soo socda ama muuqaalkani kadib marka aad daawataan okay hagaag kusoo dhawaada marka muuqaalkeena guud aan uga hadli doono 15 coin oo ay tahay marka inaad wax un aad ka haysato coinankani haddii horeyna la joogtay waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani iyo sidoo kale taageerida janalkani asxaabta weli daawanaya muuqaaladeena aanan shareta iyo liketa iyo subscribe-taba inoo saarina waxaan leenahay idinkuna waad mahadsantihiin maadaama aad daawanaysaan muuqaal waqti juhdi iyo fikir lasoo geliyay idinkuna sidoo kale si lamid ah intaasi kadib aan usoo laabano muuqaalkeenan maantay assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh mudane iyo marweyn kusoo dhawaada Garaadkaab Academy kusoo dhawaada barashada cryptocurrency-ga gaar ahaan qaybteeda bilaashka oo aad ka daawanaysaan Garaadkaab Academy YouTube channelkiisa iyo sidoo kale Facebook page-ka uu leeyahay Garaadkaab Academy intaasi kadib 15 coin aan rabo maantay waxay tahay waxaana ugu horeeya coinka lagu magacaabo Solana intaanan ka hadlin marka coinankaasi mid aan marka uga hadlin waxaan rabaa marka hore waxaan joognaa crypto bubble-ka ayaan joognaa crypto bubble-ka haddii aan fiirino 1 hour-ka waxaad u jeedin coinanka inay xoogo marka casaan iyo marka green ay isku jiraan aad u jeedin 1 hour-ka waaye haddii aan dhahno 1 day-ga waxaad arkaysiin marka inuu sidoo kale casaanka uu ku badan yahay sidoo kale haddii aan dhahno 1 week waxaad u jeedin inuu ahaa suuqa marka wada green ayaad u jeedin okay amazing waaye coinanka qaar waliba waxaad u jeedin inay sameeyeen dhaqaaq waali ah sida virtual waxaad u jeedin 143 ayuu sameeyay isbuucii la soo dhaafay koror ah ayuu sameeyay sidoo kale zoo ayaad u jeedin oo marka 49.4 ayuu sameeyay weegi la soo dhaafay ayaa lagu leeyahay marka dhaqaaqa uu sameeyay marka zoo caadi maahan sidoo kale bonka ayaad u jeedin waxay sameysay 46.5 ay sameysay bebe 8.2 ayuu sameeyay sidoo kale Floki 39.1 ayuu sameeyay marka coinanka algo wuxuu sameeyay 16 ayuu sameeyay XRP wuxuu sameeyay 7.9 ADA ama Cardano waxay sameysay 9.9 Ethereum 10.7 ay sameysay Tram wuxuu sameeyay toddobaadkii la soo dhaafay 57.4 ayuu sameeyay waan arki doonaa waxyaabahaasi oo dhan marka J-Link waxay sameysay 10.1 ay sameysay saad u jeedinba marka XLM 12.2 ayuu sameeyay dhammaan coinska marka Bengu waxaad u jeedin 114 ayuu sameeyay oo koror ah waa 1 week marka la joogo weeyaan marka okay haddii aan kusoo laabano marka 1 hour-ka haddii aan kusoo laabano marka qaabkan waaye farxadii haday ma taalo 1 day-ga sidoo kale haddii aan fiirino siguna sidoo kale waa casaan ayuu badan yahay virtual waxaad u jeedin weli 16% ayuu sameeyay oo koror ah weliba oo ziyaada okay qaybtan haddii aan fiirino marka ugu horeysa Bitcoin aad u jeedin ayaduna waxay maraysaa hadda 94,774 ay maraysaa market cap-keedana 1.88 trillion waaye
24 volume trading ka waa 25.68 bilyan waaye 1 hour keeda waxay ku jirtaa minus 0.1 1 day geedana waa 0% waaye 1 week 5.4%, 1 month waa 14.3% oo koror ah waaye marka qaabkaasi weeyaan marka. Okay, haddii aan ku laabano marka qaybta iyo coin market cap-ka coin-ka aan rabo maanta aan idinla wadaago oo ugu horeeya wuxuu noqon doonaa Solana ayuu noqon doonaa. Solana marka haddii aan fiirino oo aan ku dhufano waxaan arki karnaa marka taariikhdiisa oo kooban ayaan halkan ka arki karnaa. Solana hadda waxay maraysaa saad ujeediinba 147.72 ay maraysaa, waxayna ku jirtaa 1.21% ay ku jirtaa 1 day-geeda oo marka minus ama casana ayay ku jirtaa Solana marka weli khadka ayaa naga culus marka waan ka cudur daaranayaa midaasi. Solana marka waxay gaartay ilaa iyo 152 meelahaasi ayay gaartay marka maalmihii la soo dhaafay marka ay soo dhaqaaqday oo ka soo kicitantay ilaa iyo 100 iyo marka 20 iyo xitaa waxay gaartay Solana 100 ayay gaartay maalmihii ugu dambeeyay ama bishii Abriil bilowgeeda meelahaasi ay joogtay marka waxay sameysay dhaqaaq fiican ay sameysay xoogo Solana inkastoo sidaas ay tahay. haddii aan fiirino marka 7 day-geeda ayaan fiirin doonaa Solana. Okay, Solana 7 day-ga markaan ku dhufano kadib halkan waxaan arkaynaa marka Solana inay gaartay meelahaasi ayaad u jeediin ilaa iyo 54 ayaad u jeediin waxay gaartay 25 bishii April 2025 54 ayay gaartay. haddii aan dhahno marka 1 month-ga haddii aan fiirino marka waxaan arkaynaa Solana halka ay gaartay ayaan arki karnaa 1 month-geeda marka Solana qaabkaasi waaye marka xoogo khadka ayaa naga culus midaasi waan ka cudur daaranayaa mar kale kadib qaybtani waan ka socon doonaa Solana. Okay, haddii markaan fiirino Solana haddii meelahaasi waxaad arkaysiin inay gaartay meelahani oo ahayd marka bishii afaraad 6deeda 2025 waxay joogtay $101 waa bishani gudaheeda waay oo waliba maalin 6 ay tahay ayaa halkaasi ay gaartay marka $101 ay joogtay. haddana maanta waxaa joogtaa 140 ilaa iyo 153 meelahaasi ayay gaartay marka 7 day-geeda haddii aan fiirino marka Solana kolley hadda sharxaad iyo sheegitaan iyo marka uma baahna qofkii ku jira suuqani cryptocurrency-gana waa inuu wax uun ka haystaa Solana ha yaraadeena midaasina waa tala marka sidoo kale waan ka socon doonaa coin-keena labaad ayaan fiirin doonaa. coin-ka labaad oo aan u hadli doono maanta waa J-Link coin-ka lagu magacaabo Link ama J-Link waaye. J-Link haddii aan fiirino hadda wuxuu marayaa ilaa iyo 14.89 ayuu marayaa. sidoo kale J-Link haddii aan fiirino all time high-giisa halkan waxaad u jeedaa in uu gaaray 48 inuu gaaray markii ahayd marka taariikhda markii ahayd 5 bisha 11aad 2011 halkaasi ayuu gaaray markaas aad u jeediin waa 48.8 iyo marka hadda wuxuu joogaa J-Link haddii aan fiirino 7 day-giisa haddii aan fiirino waxaan arki karnaa siguna sidoo kale meelaha ugu sareysa uu gaaray halkan haddii aan fiirino marka waxaad arkaysiin ilaa iyo 14 waaye sidaas uma badna 23 bisha afaraad waaye. Okay, sidoo kale meelahan haddii aan fiirino ayaduna waxaad u jeediin 15.3 waaye oo ah 25 bisha afaraad waaye weliba. Okay, 1 day-ga haddii aan fiirino waxaan arki karnaa meelaha ugu hoose ay gaartay meelahaasi ayaa ka mid ah marka ilaa iyo 14.46 waaye 28 bishii afaraad marka J-Link wuxuu ka mid yahay marka coinska mashruuca weyn ku dhisan waaye marka oo sidoo kalena dhaqaaq fiican hore u sameeyay haddana uu sameyn doono bull rankigan insha Allah taala sida la rajeynayo ayuu ka mid yahay. Okay, haddii aan ku laabano marka coin-ka inoo xiga oo saddexaad oo aan rabo inaan idinla wadaago maanta waa Avakis waaye ama Avalanche ayaa lagu magacaabaa. Avalanche haddii aan fiirino asiguna wuxuu ka mid yahay
coinanka macquulka ay tahay inay sameeyaan dhaqaaq waali ah ama dhaqaaq fiican oo marka laga bariisaysan karo. hadda haddii aan fiirino Avalanche ilaa iyo $21.97 ayuu marayaa one daygiisa waaye. marka haddii aan dhahno 7 dayga waxaan arki karnaa marka meelaha uu gaaray ayaan arki karnaa. meelahaasi waxaa kamid ah marka ilaa iyo 22 ayaa kamid ah oo 26 bishii afraad uu gaaray. sidoo kale waxaa kamid ah 22 oo uu gaaray 23 meelahaasi waaye. marka meelaha ugu hooseysana uu gaarayna waa 21 waaye. sidoo kale oo uu gaaray 27 bisha bisha afraad 2025 all time high-giisa haddii aan fiirino marka Avalanche all time high-giisa waa meeshaasi waaye. marka haddii aan fiirino oo halkaasi 128 ayuu gaaray markii ahayd marka bisha 11aad 21 2021 wuxuu gaaray 128. maanta wuxuu joogaa $21 ka waran. marka haddii aad ku maalgashato Avalanche $21 ama weliba ka hooseysa laga yaabo. hadda maadaama bishu gebagabay tahay maanta ay tahay 29 xoogoo suuq marka hoos u dhac ku socdo marka ilaa iyo bisha 4-5 haddii aad marka waa macquul kadibna meeshaasi halkaasiga uu joogo aad marka aad ku iibsato suuqani oo Avalanche aan ka hadlayna oo ay ku gaarto marka ka waran all time high-geeda ay ku gaarto ama all time high-geeda kala bar kamida ay gaarto ama ay dhaaftaba ka waran. marka waa fursad aad iyo aad u weyn waaye marka qof walba uusan heli karin. okay haddii aan ka socno coinkaasi asiguna coinka inoo xiga oo afraad asiguna waa Dogecoin waaye. Dogecoin asiguna wuxuu kamid yahay coinska oo meme coinska ah weliba meme coinska coinankii ugu horeeyay ayuu kamid yahay Dogecoin. Dogecoin haddii aan fiirino hadda qiimihiisa waa 0.17 ayuu marayaa Dogecoin. sidoo kale haddii aan fiirino 7 daygiisa Dogecoin waxa uu asiguna aan arki karnaa macluumaadka ku saabsan iyo meesha ugu sareysa uu gaaray aan arki karnaa. meeshani waa meesha ugu sareysa 7 daygiisa haddii aan fiirino. marka qaybtaasi marka haddii aan geyno waxaad arkaysiin 25 inuu gaaray marka 0.18 haddana waa 0.1779 ayuu marayaa. oo sidoo kale all time high-giisa Dogecoin sidaasi uma badna meelahaasi waaye. marka aad u jeedin 0.58 meelahaasi waaye. marka wuxuuna gaaray bishii shanaad 6deeda 2021 haddana wuxuu maray 0.58 haddii uu ku gaaro marka 0.1 adiguna aad ku iibsato ama 0.1615 meelahaasi aad ku iibsato ka waran waa lacag fiican waaye. marka oo aad geliso $500 ama $10 maadaama dadkana u xiran ay u badan yihiin dad bilow ah marka suuqaani. marka asiguna sidoo kale lama dhaliilsan karo Dogecoin asiguna wuxuu kamid yahay marka coinska ama meme coinska Elon Musk oo favoritekiisa uu yahay ayuu kamid yahay. marka okay waan ka socon doonaa marka hadduu alle ka dhigo. sidoo kale coinka inoo xiga oo aan rabo inaan idinla wadaago coinka shanaad waa Near Protocol. meelahaasi aan ka raadin doonaa boqolka ugu horeysa ayuu ku jira waa midkani Near Protocol. haddii aan ku dhufano Near Protocol marka asiguna waxaan arki karnaa macluumaadkiisa ayaan arki karnaa halkan oo dhameystiran weliba. sidoo kale halkan waxaad u jeediin marka 7 dayga haddii aan fiirino Near Protocol 7 daygiisa ilaa iyo meelahaasi ayuu gaaray oo aad u jeediin 2.72 ayuu gaaray ayaa lagu leeyahay. haddana waa 2.58 ayuu marayaa 7 dayga keliya waaye. all haddii aan dhahno fiiri all haddii aan dhahno waxa uu gaaray Near Protocol meelahaas ayuu gaaray oo waxaad u jeediin bishii koowaad 14keeda 2022 wuxuu gaaray 20.18 ayuu gaaray Near Protocol. marka haddana wuxuu joogaa waa 2.58 ayuu joogaa marka Near Protocol. sidoo kale 7 dayga meelaha ugu hooseeya uu gaaray haddii aan fiirino meelahaasi ayaa kamid ah 2.36 ayuu gaaray saad u jeediin
marka Nia protocol asiguna qaabkaasi waan ka socon doonaa coin-kani balse haddii adigu aad awoodo oo lacag wax u naadaysato waxaan kula talin lahaa inaad wax kamid ah aad iibsato coin-kani weliba hadda maahan waqtiga aad iibsanayso maadaama hadda uu ku jiro marka dhaqaaq fiican uu ku jiro oo koror ah oo kor u socdo marka xoogo uu soo daato oo marka ilaa iyo $2 ilaa iyo $1 iyo 90 senti 80 senti meelahaasi haddii uu imaadaba waaye marka inkastoo si fudud halkaasi inuu markale soo gaaro ay adkaan doonta maadaama suuqani iska yahay mid marka more volatile ah haddana xoogo marka inaad sugto waaye marka maalimo ay ku qaadan doonta balse haddii $2 aad ku hesho Nia protocol talaahantayda ma xuma ayaan isleeyahay balse hadda maahan inaad hadda aad gasho oo aad marka hore aad ka iibsato midaasi ha samaynin marnaba midaasi ku lama talinayo okay waan ka socon doonaa coin-kani asiguna sidoo kale haddaba haddii halkaan aad soo gaartay waxaan ku leeyahay waxaa tahay qof dhiiran oo marka karti leh oo go-aan leh oo geesinimo iyo marka noloshiisa inuu wax ka bedelo raba ayaa tahay aan ku leeyahay waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka ilaa iyo heerkani aadna soo gaartay sidoo kale waxaan rabaa 3 coin ugu dambeeya waa 3 coin aan ugu talagalay qof walba oo marka hami kale suuqani waa marka aan rabo inaan la wadaago dadka dhamaysta muuqaalkani oo keliya ayaan xaq u yeelan doona oo marka heli doona 3daasi coin iyo muhiimada ay leeyihiin sidoo kale haddii aad danaynayso koorsooda cryptocurrency-ga iyadoo 3 level ah haddii tahay beginner haddii tahay intermediate haddii tahay advanced ayaa marka diyaar ah waan la soo xiriiri doontaa numberka waxaan ku dhigi doonaa qaybta iyo description-ka ama muuqaalka dhexdiisa ayaan idinkula soo wadaagi doonaa insha Allah taala marka waan sii wadi doonaa la soo ilaa iyo muuqaalka dhamaadka 3 coin ugu dambeysana waa 3 coin ugu muhiimsan muuqaalkani maanta aan duubayo okay coin-ka inoo xiga waxa waaye siguna waa Polkadot okay Polkadot saad u jeedin hadda wuxuu marayaa 4.24 1.83 ayuu ku jiraa 1 day-giisa oo marka faa'iida haddii aan fiirino 7 day-ga Polkadot 7 day-giisa haddii aan fiirino marka waxaan arki karnaa ilaa iyo meelahaasi in uu gaaray ayaan arki karnaa Polkadot ilaa iyo meelahaasi ayuu gaaray oo ah 4.36 bishii afraad ayuu gaaray sidoo kale meelaha ugu hooseysa uu gaaro meelahaasi ayaa kamid ah 3.95 ayaa kamid ah sidoo kale halkani waxaa kamid ah marka 3.80 22 bishii afraad 2025 all time high-giisa haddii aan fiirino Polkadot halkan ayaan tagi doonaa oo meesha ugu sareysa waxaad u jeedin $50.87 ayuu gaaray waa bishii 11aad afarteeda 2021 weeye ka waran haddii $4 aad ku iibsato suuqani aad kaga iibsato kaga adeegato Polkadot ama $4 wax ka hoose aad kaga adeegato ilaa iyo $3 iyo bar $3.80 oo uu ku gaaro ka waran $50 all time high-giisa leh haddii uu gaaro ka waran haddii uu dhaafo marka waaba iska daaweeyeen marka sheekadu way tagtay kadib marka Polkadot asiguna qaabkaasi ayuu shaqeynaya Polkadot qofkii marka rajaynaya waa uu iibsan karaa balse ugu xasuusanow maahan videogani la talin dhaqaale maahan waa educational purpose waa share information waa do your own research muuqaalkani maahan la talin dhaqaale oo baaritaanka adiga ku gaarka suubso oo samayso kadibna alla tala saaro kadibna geesinimo la imaw intaasi waa marka inta laga rabo inaad samayso okay haddii aan socno marka coin-kayna labaad waxaa lagu magacaabaa Aptos ayaa lagu magacaabaa kaalinta 29aad ayuu kaga jiraa suuqani marka rankiga Aptos haddii aan fiirino coin-kani wuxuu kamid yahay isiguna coinanka isha lagu haayo ayuu kamid yahay hadda wuxuu joogaa ilaa iyo 5.56 ayuu joogaa 0.34 ayuu ku jiraa 1 day-giisa haddii aan fiirino markaas 7 day-giisa Aptos haddii aan fiirino waxaan arki karnaa sidoo kale macluumaadka iyo meelaha ugu sare meelaha ugu hooseysa uu gaaray ayaan arki karnaa coin-kani lagu magacaabo Aptos sidoo kale macluumaadkiisa haddii aad rabto market cap-kiisa inta uu marayo 3.44 bilyan ayuu maraya volume-kiisa waa 24 hour-ka 107.24 milyan waaye sidoo kale waxaad ujeedaa total supply-giisa 1.15 bilyan waaye maximum supply-giisa waa infinitive waaye oo lama oga lama guungaari karo weeyaan marka
sidoo kale halkan social media aad kala socon kartaa waxyaabaan hore aan uga soo hadalnay marka waqti kuma luminayno sidoo kale haddii aan fiirino marka meelaha ugu hooseysa meelahaasi ayaa kamid ah saad u jeediin ilaa iyo meelahaasi ayaa kamid ah sidoo kale meeshani ayaa kamid ah oo meesha ugu hooseysa haddii aan fiirino all time highgiisa waxaan arki karnaa ilaa iyo meelahani inuu gaaray oo ah $18.31 kowda bishii koowaad 29keeda 2023 sidoo kale halkani ayaduna meelahaas ayuu u dhow yahay marka waa bishii 29keeda 2024 isaguna meelahaas ayuu gaaray $8 ilaa iyo $18 ilaa iyo $17 waaye marka Aptos meelaha ugu sareysa uu gaaro okay haddii aan ka socno Aptos marka coinka inoo xiga waa coin aad iyo aad marka muhiim u ah waa coinkani waxaa lagu magacaabaa ICB internet computer ayaa lagu magacaabaa waa coin aad iyo aad u qiimo badan waaye marka haddii aan fiirino coinkani waxaad arki kartaa barayska maanta uu joogo iyo barayska uu gaaray all time highgiisa oo aan isla arki doono insha Allah taala hadda wuxuu joogaa 5.02 ayuu joogaa oo marka $5 ayuu joogaa sidoo kale 7 daygiisa haddii aan fiirino coinkani oo lagu magacaabo internet computer ICB loo soo gaabiyo meelaha ugu hooseysa halkan haddii aan fiirino waa 4.77 ayuu joogaa waa markii ahayd bishii afraad 2020keeda sidoo kale meelahan haddii aan fiirino wuxuu joogaa 4.95 ayuu joogaa $5 ayuu dhow yahay halkan waxaad u jeediin halka hadda uu marayo waa marka maanta balse haddii aan fiirino midda cajiibka ah waxay tahay marka all time highgiisa haddii aan fiirino ICB waxaad u jeediin inuu gaaray ilaa iyo halkani oo ah $428.48 waa goorme bishii 15keeda 2021 waa burrankigani midkii ka horeeyay 2021 waa 428 maantana wuxuu marayaa $5 marka ka waran haddii uu gaaro all time highgiisa ama kalbar kamid ah ama saddex kameel hal meel haddii uu ku gaaro xitaa ka waran $5 adigoo ku maalgashatay marka ICB marka ICB asiguna wuxuu kamid yahay coineska aadka iyo aadka marka loo danaynayo ayuu kamid yahay bullrankigani waan ka socon doonaa marka insha Allah taala do your research sidoo kale coinka inoo xiga oo sagaalaad waxaan rabaa inaan marka aan idin la wadaago waa render haddii aan fiirino asiguna sidoo kale wuxuu kamid yahay hadda wuxuu joogaa qiimihiisa waa 4.45 ayuu joogaa 2.12% faa'iido ayuu ku jira one daygiisa sidoo kale 7 dayga haddii aan fiirino marka waxaan arki karnaa macluumaadka la xiriira ayaan arki karnaa coinkani ilaa iyo $4.20 iyo wuxuu maraya 7 ayuu soo taabtay uu gaaray bishii afraad 24keeda mar wuxuu gaaray isla bisha afraad 27keeda 4.13 ayuu gaaray marka qaabkaasi waa hadda maanta wuxuu joogaa marka 4.46 ayuu joogaa haddii aan fiirino marka all time highgiisa render asiguna wuxuu gaaray ilaa iyo meelahani oo ah $11.39 bishii saddexaad 12keeda 2024 ayuu intaasi uu gaaray ka waran marka haddii $4 iyo marka sentaal aad ku iibsato kadibna ilaa iyo $11 uu ku gaaro ka waran marka waa faa'iido fiican waaye maahan marka lacagtani hadda aan ka hadlayno inaad geliso maanta berina aad hesho lacagtani maahan waxay u baahan tahay inaad suuqa fursad aad siiso weeyaan marka suuqa rabitaanka kuma shaqeynayo qofna rabitaankiisa kuma shaqeynayo asiga ayaa marka go'aankiisa wata suuqani cryptocurrency marka la joogo kaliya waxa asiga uu ku shaqeynayo ama saameynta weyn ku yeelanayo waxay tahay marka siyaasadda iyo marka canshuuraha iyo dagaalada iyo waxyaabahaasi iyo marka dalalka marka awoodda badan sida Mareykanka iyo waxyaabaha la midka ah marka waxyaabahaas ayaa marka saameyntu ku yeelan kara oo kaliya lacagaad u baahan tahay inaad soo gelinin suuqani marnaba in badan aan marka u sheegayna dhalinyarteena midaasina sidoo kale lacagta jaamacadda lacagta iskuulka lacagta biilka lacagta kirada dhammaan waxyaabahaasi waa mamnuuc weeyaan marka inaad halkani aad soo geliso okay coinka aan rabo tobnaad oo ugu marka waxa weeyaan asiguna sidoo kale Algorand ayaa lagu magacaabaa
Algorand waxaad u jeedin asiguna sidoo kale haddii aan ku dhufano in uu marayo hadda 0.2302 inuu marayo ayaad u jeedin. Sidoo kale haddii marka aan fiirino hadda market capkiisa waa 1.97 billion ayuu maraya Algorand 7 daygiisa haddii aan fiirino Algorand wuxuu ka mid yahay coinska aan maalgashi ahaan investment ahaan oo long weliba term aan ugu jiro ayuu ka mid yahay. Okay, haddii aan fiirino marka meelaha ugu hooseeya uu gaaray bishaani haddii aan fiirino ilaa iyo marka bishaani wuxuu gaaray 0.198 ayuu gaaray 22 bishii afraad waaye. maanta wuxuu maraya marka 0.23 ayuu maraya all time highgiisa haddii aan fiirino Algorand waxaad u jeedin in uu gaaray meelahaasi oo ah $3.15 inuu gaaray bishii lixaad 22keeda 2019 marka ka waran 0.02 haddii aad ku maalgashato oo uu ku gaaro ilaa iyo $3 ilaa $5 uu ku gaaro ka waran marka faa'iidinta leeg ah ayaad ka samayn kartaa haddii lacag fiican aad geliso weeyaan marka ama lacag macquul ah ilaa iyo $5 ay ugu yartahay $1 haddii aad geliso 2,000 ka waran marka dhammaan lacag fiican ayaad ka samayn kartaa. marka sidaas aan ku leeyahay maahan inaad lacagtaada oo kaliya hal coin aad geliso 2 coin aad geliso maahan ugu yaraan lacagtaadi waa inaad gelisaa 3 coin aad gelisaa weeyaan marka ugu yartahay haddii aad haysato weeyaan marka lacag $1,000 ay gaarayso $1,000 ugu yaraan 3 coin waa inaad ku maalgashataa si haddii mid xoogo marka sidii la rabay uusan noqon sidii la rabay ay ku noqdaan ama ka fiican ay ku noqdaan ama mid ku qarxo marka. Okay, coinka inoo xiga oo aan rabo inaan idinla wadaago maantay waxa weeyaan coinka lagu magacaabo Jasmy. Okay, halkan waa Jasmy 79 ayuu kaga jira suuqani rankigiisa hadda wuxuu maraya Jasmy 0.016 ayuu maraya haddii aan fiirino 1 daygiisa waxaad u jeedin xoogo marka minus ayuu ku jira ilaa iyo 0.016 ayuu maraya 29 maanta la joogo weeyaan 7 dayga haddii aan fiirino marka meelaha ugu hooseysa uu gaaray halkan haddii aan fiirino waxaa ka mid ah marka ilaa iyo 0.014 ayuu maraya 22 bishii afaraad waaye marka sidoo kale meesha ugu sareysa uu gaarayna waxa waaye 0.189 ayuu gaaray oo ah bisha afaraad 25keeda 2025 maantana wuxuu maraya marka waa midka aad u jeedin 0.01645 ayuu maraya haddii aan fiirino all time highgiisa halkan aan geyno marka waxaad u jeedin 3.42 ayuu gaaray bishii 16keeda 2021 burankigi midkani ka horeeyay waaye marka. Okay, marka asiguna sidaas ayaan uga socon doonaa midka 12aad asiguna waa AIXBT ayaa lagu magacaabaa. Okay, AIXBT markaan aanu kadib halkan waxaad u jeedin 0.153 ayuu maraya oo 6.60% ayuu ku jira weliba 1 daygiisa haddii aan fiirino oo koror ayuu sameeyey halkan saad u jeedin 28 bishii afraad wuxuu gaaray 0.166 ayuu gaaray 4 sidoo kale haddii aan fiirino 7 daygiisa AIXBT waxaan arki karnaa marka meelaha uu gaaray halkan haddii aan fiirino waxaad u jeedin waa 0.1632 ayuu gaaray 26 bishii afraad 2025 haddii aan fiirino all time highgiisa wuxuu gaaray coinkani 0.917 ayuu gaaray markii ahayd bishii koowaad 16keeda 2025 oo aad u jeedin marka almost $1 ayuu ku dhawaaday inkastoo uusan gaarin balse hadda wuxuu joogaa 0.15 ayuu maraya ka waran haddii aad ku maalgashato 0.14 ama 13 meelahaasi ka waran uu ku gaaro $1 uu ku gaaro ka waran oo xogo lacaga aad geliso ilaa iyo $100 200 300 4 5 intii adigu aad awoodo marka
okay hagaag waan ka socon doonaa haddaba marka waxaan insha Allah taala aan idinla wadaagi doonaa saddexda coin ay tahay marka inaad wax aad ka haysato hab yaraadane bullrankigaani oo marka la rajaynayo inta sanadkani ka dhiman inuu marka sameysmo uu dhaqaaqo suuqaani ayaan rabaa coinskani in badan ayaan ka soo hadalnay balse waxaan rabaa inaan idinku adkeeyo mar kale ayaan rabaa sidoo kale dadka nagu cusub oo maalin walba nagu soo biiraya ayaguna sidoo kale ay uga faa'iideystaan ayaan rabaa marka okay haddaba marka si aan u sameyno midaasi waxaan ku laaban doonaa coin market cap-ka ayaan ku laaban doonaa coin market cap-keena ayaan ku laaban doonaa coin market cap-ka markaan ku laabano kadib hoos haddii aan u socno coinka ugu horeey aan rabo inaan idinla wadaago waa coinka lagu magacaabo Cardano Cardano maxaad ka taqaanaa walaal Cardano haddii aad marka information fiican aad ka hayso ama lacag fiican oo marka faa'iido aad hore aad ugu samaysayna la wadaag qaybta iyo commentiga okay Cardano haddii aan fiirino hadda wuxuu marayaa 0.71 ayuu marayaa sidoo kale halkaani waxaad u jeediin ilaa iyo meelahaas ayuu soo gaaray 0.68 bishii 28 bisha April 2025 7 day haddii aan fiirino Cardano waxay soo taabatay ilaa iyo meelahaasi ay soo taabatay Cardano meelahaasi waa 0.73 waaye 24 waaye sidoo kale meesha ugu hooseysana waa meelahaasi waaye marka oo marka noqonaysa meelahaasi waaye 22 bishii afraad waaye 0.65 ay gaartay marka balse haddii aan fiirino Cardano all time high-geeda waxaan arki karnaa in ay gaartay Cardano ilaa iyo marka meelahaasi in ay gaartay aan arki karnaa 2.91 ay gaartay okay waa xilligee marka waa bishii 9/5/2020 ay gaartay halkaasi Cardano marka bullrankigani hadduu alle ka dhigo waxaa loo saadaalinayaa inay gaari karto soo taaban karto all time high-geeda oo ah $3 sidoo kalena weliba ay dhaafi karto ilaa iyo $4 ilaa iyo $5 ay gaari karto waa macquul Cardano marka ka waran coin aad ku iibsatay 0.65 0.70 haddii uu ku gaaro $3 uu ku gaaro maahan waxyaabaan investmentiga waa investment maahan trading waxaan ka hadlayno waa investment maahan trading sababtoo ah coin adigu aad gelisay lacagtaasi inaad hesho haddana faa'iidadaasi $3 uu ku gaaro maalimo ama bil gudaheeda ma dhacayso maadaama investment ay tahay lacagtaasi marka lacagta aad gelinaysa suuqaani waa inaad ay tahay lacag adigu aad ka maarmi karto hal sano ugu yaraan ama ugu yaraan 6 bilood ama 1 sano 2 sano 5 sano ilaa iyo 10 sano dad ayaa haya Bitcoin maalinkii ay soo baxaysay 2009 ilaa iyo maanta urursanaya maalin walba oo weligoodna iska iibinin dad noocaas ayaa jira marka sidaasi ma sameyn karto kulli Soomaali ayaanu nahay degdegaasi iyo samirkaasi iyo marka dulqaadkaasi intaasi ah ma lihin runtii balse waxaan kula talinayaa ilaa iyo 2 sano 1 sano ugu yaraan lacagta aad maalgashi aad ku samaysanayso waa inaad ka maarmi karto marka horena aad geliso coin marka macquul ah oo adigu aad ku kalsoon tahay waxna ku sameyn doona mustaqbalka fog marka aad u samirto kadib okay Cardano marka noocyadaas ayuu ka mid yahay qofkii u samra oo lacagna geliya waxaan rajaynayaa inuu lacagtaasi marka faa'iidadeeda uu heli doono insha Allah taala sidoo kale coinka inoo xiga oo aan rabo inaan idinla wadaago waa coinka lagu magacaabo XRP asiguna rankiga afraad ayuu ku jira sidaasi uma foga XRP hadda wuxuu marayaa marka 2.28 ayuu marayaa XRP sidoo kale haddii aan fiirino 7 daygiisa xoogo XRP ma wacnayn balse haddii aan fiirino ilaa iyo 2.34 meelahaas 28 ayuu gaaray meelaha ugu hooseysa halkan kamida oo 2.13 ayuu gaaray oo markii ahayd 24 bishii afraad haddii aan fiirino XRP all time high-giisa halkan aan geyno marka waxaad arkaysiin in uu gaaray XRP marka ilaa iyo $3.36 markii ahayd
bishii koowaad toddobadeeda 2018 marka $3.36 ayuu gaaray XRP balse XRP meesha loo rajaynayo sanadkani ama 2025 ilaa iyo 2026 bilowgiisa meesha loo rajaynayo XRP halkani way ka weyn tahay qofkii hadda halkani kusoo maalgashada lacag fiican waa ka sameyn kara balse weli maahan videogan hadda aan ku leeyahay ama aan duubayo ama marka uu ku soo gaaro inaad horay marka suuqa dalaq aad ka dhahdo maahan waa inaad sugtaa oo fiirisaa suuqa meesha uu socdo jihada uu socdo waa inaad fiirisaa haddii aad aragto marka halkani iyo meelka hooseysa aad ku aragto XRP waa chance fiican waa fursad fiican aysan ku dhaafin ku dhihi lahaa XRP marka waxyaabaha asiga uu qabtay sanadkani dabayaaqadii 2024 ilaa iyo sanadkani 2025 aan ku jirno wax la soo koobi karo maahan waxyaabaha oo marka horumarka asiga uu sameeyay lama soo koobi karo XRP hore aan uga soo hadalnay XRP saan rajaynayo asiguna sidoo kale in badan marka coinkeena ugu dambeeya oo aan rabo inaan idin la wadaago oona lacagtayda ugu badan sanadkani ama maalgashiga aan ku sameeyay coinska cryptocurrency-ga aan geliyay waa coinka lagu magacaabo Zui haddii halkan soo gaartay waxaa tahay qof rajo leh qof muhiimad u leh suuqani cryptocurrency-ga qof naftiisa ka adag qof naftiisa inuu horumar gaarsiiyo raba ayaa tahay waad ku mahadsantahay kun iyo kow jeer waad ku mahadsantihiin kun iyo kow jeer dhammaantiin saad u dhantihiin marka waan idinka mahad celinaya midaasi sidoo kale haddii aan fiirino Zui hadda wuxuu marayaa 3.55 ayuu marayaa 48.98 ayuu sameeyay koror ah 7 dayga la soo dhaafay 7 maalin la soo dhaafay haddii aan fiirino meelaha uu sare u gaaray waxaa kamid ah 3.8 iyo 3 ayuu gaaray 28 bishii 2025 kaas aad u jeedin sidoo kale meelahaasi ayaduna meelahaasi meel u dhawaay wuxuu gaaray 3.79 25 bishii 2025 all time high haddii aan fiirino Zui wuxuu gaaray ilaa iyo waxaad u jeedin 5.29 ayuu gaaray waa goorme mar fog miya mar dheer miya maahan waa bishii koowaad afarteeda 2025 wuxuu gaaray 5.29 ayuu gaaray XRP marka inuu all time high-giisa uu jabinayo shaki kuma jiro inta sanadkani ka dhiman marka haddii aan iraade Zuu inuu gaaro $5 shaki kuma jiro balse waxa aad iyo aad nasiib u leh qofkii hadda Zuu ku soo biiraya oo maalgashi ku sameysanaya meelahan iyo meelo ka hooseysa waliba ku sameystay ama hadda rabo inuu ku sameysto fadlan hadda galin suuqa hadda galin dhowr jeer aan muuqaalkan dhexdiisa aan ku soo sheegay midaasi coinka hubso meesha uu socdo oo marka iska xaqiiji Zuu laakiin wararka ka soo baxay isbuucyadii la soo dhaafay caadi maahan waa sababta keentay inuu koror intaasi la eg uu sameeyo waa marka 7 daygiisa oo kaliya inuu sameeyo 48.9 uu sameeyo waa marka haddii aad hesho Zui oo $3 ah $2 xitaa waa uu gaaray Zui haddii 1 month aan fiirino marka 1 month waxaan arkaynaa Zui inuu gaaray marka bishii afraad 7/2025 inuu gaaray 1.74 ka waran haddana wuxuu joogaa isla bishan waaye dhexdeeda wuxuu joogaa 3.55 ka waran 1.74 haddii aad ku soo maalgashan lahayd lacag $1 aad gelin lahayd oo uu ku gaaro marka 3.55 waa imisa faa'iidi lahayd 2x aad faa'iidi lahayd ama 3x aad faa'iidi lahayd marka ka waran marka macnaheedu ay tahay $1 haddii aad geliso waxaad faa'iidi lahayd $1 aad faa'iidi lahayd ama 1x and half aad faa'iidi lahayd marka lacagta lagu sheegay qaabkaas ay u shaqeysaa $1.74 $3.55 kala jar marka lacagta ku soo baxda fiiri $1 geli marka intaasi waa marka xisaabi adigu marka Zui siguna qaabkaasi waa waliba Zui waxaan kula talinayaa inaad Zui aad iibsato hadii aad awoodo weeyaan marka $100 balla ka dhigay Zui wax ku tuuro aan ku dhihi lahaa hadaba marka waad ku maasantiin daawashada muuqaalkani hadii muuqaalka aan dheeray afwan karaali noqda
sidoo kalena janalka inoo taageera oo na gaarsiiya 3,000 marka boqolaalka inooga harsan waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkani waxaan insha Allah taala aan idin ballan qaadi doonaa inaan si joogto ah u soo gelin doono muuqaalo xiiso badan oo ka hadlaya sida online-ka ama internet-ka lacag looga sameeyo haday tahay affiliate marketing social media marketing social media management-ga sidoo kale cryptocurrency-ga sidoo kale affiliate marketing-ka sidoo kale waxyaabahaas oo dhan insha Allah taala aan ka soo hadli doonaa insha Allah taala waqtiga soo socda insha Allah marka waad mahadsantihiin dhamaantiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh